maalmihii la soo dhaafay waxaa taagan u dhaxeeya dawladda federaalka iyo ahlu sunna wal jamaa iyadoo magaalooyinka Matabaan iyo Gurceelna ay ciidanka dawladda la wareegeen waxoogaa isku dhacahna ayuu halkaasi ka dhacay maanta waxa sidoo kale magaalada Dhuusamareeb laga sheegayay xiisad ka taagan meelaha qaar haddaba si aan wax badan uga ogaano amuurahaasi taagan ayaa mar dhow waxaan la xiriiray Sheekh Maxamed Shaakir oo ah madaxa xukuumadda Galmudug oo aan ugu horreyn weydiiyay bal inuu iiga warramo xaalka sidii uu yahay arrinka isaysiga waa dhacay wada hadalkiisii ana socda marka maxaad ka wada hadlaysaan marka adigu guddi baad gooni u magacawday aad leedahay waa guddiga farsamada ee soo dhisaya baarlamaanka cusub dawladda guddi bay ku dhawaaqday ma ka heshiiseen oo hadda hal guddiyaad isla qaadateen mise waad kala taagantihiin wali wadadii lagu qaadan lahaa in hal guddi la isaga dhigo guddiyadii la magacaabay ayaa lagu joogaa wixii dib oo xoogaa dhacana loo xallin lahaa loo dhayi lahaa midnimadii iyo sharaftii iyo wanaagii Galmudugna hore loogu sii socon lahaa shalay Gurceelay dawladda la wareegtay Matabaan sidoo kale ahlu sunnana way ka baxdaan la yiri maantana Dhuusamareeb meelo cusub bay dawladda la wareegtay oo xafiiskii degmada ay ka mid tahay warkaas ma jira oo ma wareejiseen oo ma ka baxdeen dhulkaas arrinka wax ka jira male deegaamadaani maba u baahnaba in dadkii xoreeyay haddana la niyeystay in laga xoreeyo ma u baahna marka arrintaasna wadahadal ay ku jirtaa oo madaxda dawladda sare iyo annakaba xiriira nooga socda in la dhameeyo annaku haddii aan nahay shacabkii mas-uuliyiintii matalaysa dawladda soo dhaweyda ma rabno in hal xabad ay dhacdo ma rabno hal qof inuu dhinto ma rabno hal qof inuu dhaawacmo sida muuqata hadda dawladday u gacan gashay Dhuusamareeb gabi ahaanba marka laga soo tago dhismaha adiga aad ku jirtay inji Matabaan iyo Gurceelna waa sidoo kale hadda gacanta dawladda federaalka ku haysa taa macnaheeda ma la oran karaa awoodii ahlu sunna meeshaasay ku dhamaatay waxaan u malaynayaa toosh qolo aan xogaal ahna ku warantaan u malaynayaa ciidamada aad maqlayso waa ciidamadii aan isku darnay maamulkii ahlu sunna wal jamaa ciidamadiisii iyo ciidamadii dawladda la isku federaal la isaga dhigay way ciidamada adeegahaya oo shaqaynaya marka mana ahan degmooyinkii sidii bay u shaqaynayaan booliskii loogu talagalay sidii buu u shaqaynaya nabad sugidii ciidamo 400 ah loogu talagalay inay ammaanka sugaan caasimada Dhuusamareeb waxa weeye amnigeeda ciidamadii gacanta ku hayay ayaa gacanta ku haya waxa jooga salaadiintii imaamiyadii ugaasiyadii odayaashii dhaqanka oo Galmudug oo dhismaha u soo xaadiray ayaa sidii heegan ugu ah ay si dhismaha loo dhameystiro ayakaas iyo bulshada qaybaheedii kala gadisnaa dhammaantoodna shucuurahooda waa muujiyeen oo arrimahaas dhacdhacaya sida ay wax yihiin waa muujiyeen ayadana waxaan ku soo dabaalaynaa biidnillahi alkarim sida ugu wanaaga badan ayaan ku soo dabaalaynaa biidnillah annaka mar walba waxaan doonaynaa shacabkeena iyo bulshadeena inaan u tanaasulno ayaa mar walba naga go'an maba u baahnaba in yacni ay naxaan ama ay hal hooyo ama hal caruur oo guri ka baxo asagoo cabsi daraadeed amni bay ahaayeen amnigaasna dawladdeena nagu gacan siidaan doonayna arrintii in 35 xildhibaan la idin siiyay haddaad ahlu sunna tihiin xaggee ku dambaysay meel fiican ay maraysaa marka ma la idin siinayaa oo rajaad ka qabtaan mid iski weyn Sheekh Maxamed Shaakir dawlad federaal waa la gartay dawlad goboleedna waa la gartay intaa wixii ka soo harsan soo nidaam dawladnimada baalmarsan ma ahan yani intaas wax ka soo haro jiraaba ma jiraan dawlad goboleedka Galmudug ayaa halkan lagu yagleelayaa oo waqtigii yani waqtigii 4 sano ahaa oo hore uu idlaaday halkan marka waa cusboonaysiinayo dawlad goboleedkii ma ahan wax kale oo ka jira meesha dawlad goboleedka Galmudug oo ay ku midaysan yihiin Galmudug intii deganeed oo dhan ayaa halkan lagu yagleelayaa adi mustaqbalkaaga muxuu noqonayaa Sheekh Maxamed Shaakir ahaan haddii Galmudug cusub la dhisayo siyaasadda ma ku sii jiri doontaa ma wadaadnimadii iyo waxaad ku noqonay kitaabkii iyo masjidkii xageed rabtid inaad ku dambayso kitaabkii iyo masjidkii haddaba waaba ku jiraaba waa anigu hadda madaxa ayaa sidii ugu jira marka waxaa laga yaabaa inaan kor u sii kacana waa laga yaabaa inaan yacni Galmudug oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan isu keenana waa laga yaabaa marka mustaqbalkayga aad iyo aad kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Shaakir oo isagoo Dhuusamareeb jooga qadka telefoonka igu waramayay